14 ruux oo Falastiin ah ayaa ku dhaawacantay weerar xalay salaadii cishaha kadib dhexmaray dad ku tukanayay Masjidul Aqsa oo ku yaala magaalada Qudus iyo ciidamada Israa'iil. dadka Falastiiniyiinta ee ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa isugu jira kuwa dhaawacooda uu halis yahay iyo kuwa dhaawacooda uu aad u fudud yahay. wararka ayaa sheegaya in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi uu ku jiray imaamka masjidkaasi ee lagu magacaabo Ikrima Sabri. xaaladda ammaan ee magaalada Qudus ayaan ahayn mid xasiloon, waxa isa soo taraya weerarada isdaba joogga ah ee ka dhacaya magaaladaas. wararka qaar ee ka soo baxaya weerarka xalay ka dhacay magaalada Qudus ayaa sheegaya inuu salka ku hayo diididii Israa'iil ay diideen Falastiiniyiinta inay ku dugtaan masjidka barakaysan ee Al-Aqsa.